waxaan leeyahay raggayaga Soomaaliyeed dalkii idinka naga soo saaray siyaasad baa naga soo saarteen Norway idinkaana daba socda masaajidkii aan u gurmanay anagoo 200 oo qof waxa weeye maanta waxa isku haystaa waa rag waxaan aaminsanahay dumarkii ugu horreeyay Norway 1986 soo galay baanahay annagoo 200 oo reer ayaan lacagta masaajidka ururin jiray maantana masaajid weyn oo intaasoo dabaqa ayaanu dhisnay oo ay dumarku dahabkoodii iyo xiriirtoodii ay ku bixiyeen run waxaan idin sheegayaa idin ka codsanaya idinkoo walaaladaya qofna aanan u jeedin siyaasadna aanan ka hadlayn ragga iyagow waxaan idin leeyahay kelmadda aan u kacay waxa weeyaan waar dib isugu noqda oo dalkana noo daayo noo hagaajiya war halkana dad kuma nihine dad naga dhiga dumarka iyo caruurtu ilaahay idin hoostooda waxaan idin ka codsanayaa masaajidka tawfiiq caalamka in the world meel kasta nagala soo hadlaya ma Norway baa joogtaan masaajidkeedii la isku haystaa waxaan idin leeyahay waa soo sad waa tris qalbigaan xanuunaya walaalayaal idinkoo halka ragga sharafta leh fadhiya wada masaajidkaan ku wada garanayo culimadaydii ay tahay oo karaama aan naga mudantii intay ka maqan aan la hadlayo intay haysatana aan la hadlaayo ilaahay baan idinku dhaariyo ilaahay baan idinku dhaariyo ilaahay baan idinku dhaariye dahab iyo xariir wax nagu hadhay ma jirtee caruurtaydina jeelkay ku jirtaa xoolaha iyagina idinka ayaa durbaana isugu garaacayee war masaajidka tawfiiqa la dejiyo oo masaajidka laga dhiga aqalkii ilaahay lagu tukanayay waxaan leeyahay masaajidka dumarka laga qayb geliyo oo dumarka siyaasadda ku milmay ee qolada masaajidka ay doortay laga saaro ma imaado wallahi wa rabbul kacba inaan wali salaad ku tukan masaajidka tawfiiq waxaan ugu tukan waayay dadkii dhisay ee kaadidooda u soo cabay dad baa ila kaadiba wax soo cabay markay Soomaaliya ka hadlayaan ayaan kamid ahay ilaa abtunaano u taagan nalooma ogola war rag imka shalay soo galo Soomaaliya ka yimi oo Soomaaliya burburkeedii dagaaladeedii ka soo qayb galay ayaa tawfiiq ku dagaalamaya ittiqillah baan idin leeyahay sida ay maanta hiiraan gacanta isugu qabsanay ee ay doonayna inaynu wax ugu qabano tawfiiqna waxaan leeyahay gacan biraha lagu qabto hablaana laga qayb geliyo war maxaa diiday hablaha dawladda Norway dumar baa lacagtaydi siinaya war dumarku ma ka xaraan ba inay wax qabtaan war dumarku codkoodu intaasoo inay ka dhex qaydiyo diintu ima ogola xanuun baa ishidaaya waxaan idin leeyahay tawfiiq dhulka hala dhigo oo tawfiiqa laga dhigo masaajidka ilaahay intaas ayaan idin ka codsanaya reer hiiraan hablaha walaaladaya intaasoo qof isu keenay asumay waxaan leeyahay xooga haydin barakeeyo ilaahay shirinka haydin barakeeyo ilaahay raggiina haydin barakeeyo caruurtana Allah haydin barakeeyo raggayaga Soomaaliyeedna koonfur iyo waqooyi meel kastoo ay joogtaan ama Somaliland sheegta ama Puntland sheegta ama Djibouti sheegta ama Elfidland sheegta annaga raggayaga Soomaaliyeed af Soomaaliga ku hadlaan la hadlaya waxaan leeyahay dalka yaga siyaasad xumo ayaa haysee waragoo siyaasadda dhulka dhiga oo caruurtii dumarka inta wall way ku baabaasan yihiin war dumarkii caruurtooda naxariisto oo ragoodii noqda gabadh yar oo guriga idinka eriday ciilkeeda ha ku shaqaynina laakiin raganimadii ilaahay idin siiyo ku shaqeeya oo diintii ilaahay idin siiyo ku shaqeeya oo dumarkii caruurta u jiheeya maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu leeyahay farmaajo dumarkii caruurta ku doortay madaxweyne reer hiiraan هجه وبيجا كسوف فتحيا مالو والبا لعبتها صدقكم يتضرب بقولوا كرون ويان خبلا محسنينا أيها يسوع اللي بمانتا ووليقول متكي ولا وحكوا رتني ولا كي علي إن شاء الله بسم الله الكريم أنا أنت يدي دجال كنا رالي هذا غير هيرانا وحنا وكيل بحسن في بكة كذا أضمر والبوحي لقبتهم هاد علي تدك وعلي نيسان غير هيرانا وحنا الله هاي كوي ترى شوغ النقطة لكن وحنا الله هاي هرمود كصوماليات نقطة ومدة صوماليات هكذا ولكن حسب الصلاة السلام